Dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo lagu weeraray gaadiid uu watay taliyaha qeybaha guud ee booliiska gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Qaroole. Xilliga qaraxa lagu weeraray kolonyada gaadiidka, taliyaha qeybaha guud ee booliiska gobolka Banaadir ayaa waxa uu marayay wadada ka leexatay isgoyska Banaadir aadana dhanka Cisbitaal Madiina ee magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaana jugtiisa inta badan laga maqlay degmooyinka gobolka Banaadir. Dad goob joogayaal ah oo ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa saxaafadda ugu warbixiyay waxyaabihii indhahoodu ay ku arkeen. Bismillah, magacayga waa Xasan Jimcaale, waxaan ahay dalba mooto bajaaj wada ah ayaan ahay. Markii oo qaraxa dhacay waxaan 2 daqiiqo hor waxaan dhaafay isgoyska Banaadir ayaan waxaan dhaafay dad waxaan wada bukaan ah ayaan waxaan wada isbitaalka Madiina. Inta aan maray meesha ciidan intaana gaarin ayuu qaraxa dhacay. Markuu dhacay dadkii aan isbitaalka aan geeyay mootada ay la geegilatay, dadkii waxaan geeyay isbitaalka aan geeyay mootaan la socotay iga galaaleyday oo wax la jaam oo gashay oo iga galaalay oo saanay wiil iyo qof oo haween ah saanayeen ayaa oo ani iga dabeeday ayaa qarax wax ku noqday 2 qof ku dhintay. Haddii aan soo laabto waxyaalada oo ka soo gaatay qaraxa waxaan arkay 8 qofood oo dhimasho iyo 6 qofood oo dhaawac indhahayga aan saaray. Intaas kadib waxaan isleeyahay marka oo baabuurku wuxuu u ekaayay baabuur oo zaarif camal oo ila ekaay, laakiin gaariga aniga ma aanan arkin. Intaas ayaan ku soo koobayaa niyo dhimashada dhaawac inta arkay waxa 8 qof oo dhimasho arkay 6 qof oo dhaawac oo la geeyay istaag Madiina. Intaas aan arkay. qaybtaan dukaan aheed, qaybtaan muqaayo habeenkii badar lagu karinayo naagta iska leh dadka joogeen aheed. Intaan qaybtaan dukaan aheed waa kana soo jeedid eber waa hadda gaariga inta isku qarxiyay. dukaanka wiil walaalkii iska leh muqaayadin gabar dumaashada iska leh. gabar dumaashada fiican tahay waxa la sheegay qaybta oo inta ila 3 qof wax ku gaareen. gabar dumaashada ma joogin, wiil walaalkeena ma joogin oo maqnaa. hadda waxa la sheegay meesha 3 qof laga soo bixiyay. dadka kale wax badan oo la qaaday waa arkay oo 3 qof inta laga soo bixiyay arkay. marka dadka gurmadka ma si degdeg ah u heleen mas'ala gurmadka cabaar oo maqnaa kadib soo gaaray ma degdeg ku imaanay. Dhinaca kale afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali Doodisho oo xilli dambe soo gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa isna waxa uu ka warbixiyay khasaaraha ka dhashay qaraxa loo adeegsaday gaariga laguna weeraray taliyaha qeybaha guud ee booliiska gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Qaroole. iyo nafta maalka ummadda Soomaaliyeed waxay qarax ay ka soo xireen baabuur ku soo rareen la beegteen taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir oo marayay wadada ka leexatay isgoyska Banaadir ee aad istaal Soomaaliyeed goobta ku sugnaa ama meesha marayay qaraxa argixisadu ay la beegsatay Ilaahay xamdigiis taliyuhu uu ka badbaaday walow uu jira khasaare kale oo soo gaaray dadkii shacabka ahaa ee goobta ku sugnaa ama maraya wadada. khasaare wuxuu ku sugan yahay khasaaraha ayaa soo gaaray dadka shacabka ah goobta ku sugnaa. khasaaraha ayaa isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu reebay qaraxaas argixisadu ay soo maleegeen walow taliyihii ay ula dan lahaayeen qaraxa uusan wax dhibaato ah gaarin Ilaahay xamdigiisna uu nabad qabo, laakiin uu jiro khasaare dad shacab soo gaaray. inta aan ognahay waxaa jira khasaaraha oo ku sugan ilaa 4 dhimasho ah iyo dhaawaca ilaa 9 qof oo ah u badan dadkii goobta marayay. mana jiraan wax khasaare inta ka badan oo qaraxu uu reebay. argixisada waxaan leenahay hore ayaad u bandhaysateen naftii maalka iyo dhiigga ummadda Soomaaliyeed. mar aan Ilaahay haduu yiraahdo cadaaladda ayaa la horkeeni doona, waa la kula xisaabtami doonaa. mana qalqal gelin doonto, mana hor istaagi karto shaqooyinka ummadda loo hayay. in argixisadu ay qof iyo 2 nagmada bartilmaameedsadaan ma hor istaagi doonto shaqooyinka ummadda loo hayo iyo xasilinta amniga geyiga Soomaaliyeed gaar ahaan caasimadda iyo nawaaxigeeda. horena ma ahan markii koowaad aysan oo kala dad maraysan, laakiin argixisadu wax inta ka badan ay sameyn karaan ma jiro inay hadba qof gaadaan moogii. marka waxaan u sheegaynaa in aysan qaraxyada ay soo maleegaan iyo shirqoolada ay maleegaan aysan hor istaagi doonin, hor istaagina karin hawlaha ummadda loo hayo, adeega ummadda loo hayo. waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ma ahan markii ugu horeysay oo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya qarax uu ka dhaco, balse qaraxan ayaa ku soo aadaya xilli mudooyinkii ugu dambeeyay caasimadda ee ahayd mid ka nabadoon qaraxyada. deeq macalin Jino Jakey, Zab TV, Muqdisho.